Banooda Media waxay halkan idinku soo gudbinaysaa barnaamijyo kala duwan. Banooda Media haddii aad member ama xubin ka tahay waad mahadsan tahay, haddii aadan member ka ahayn fadlan nagu soo biir. Barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay ku sumoobidda cuntada waxa loogu yaqaano afka Ingiriiska food poisoning. Dhegaysi wacan. Waa maxay ku sumoobidda cuntada? What is food poisoning? Sumoobidda cuntada oo sidoo kale loo yaqaano cudurka cuntada ka dhasha waa cudur ay sababaan cunista cuntada ama cabitaanada wasakhaysan. Wasakhayntan ama fasaqaada cuntada waxay ka imaan kartaa meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin bakteeriyada, fayrasyada, parasites, toxins ama sunta waxaa soo saarta bakteeriyada ama cayayaanka kale. Kiimikooyinka sida daawooyinka cayayaanka lagu buufiyo ama shayaal kale ee waxyeellada leh. Haddii si kale aan u dhigno, maxaa keeni karo sumoobidda cuntada ama food poisoning? Sumoobidda cuntada waxaa keena bakteeriyada iyo fayrasyada oo ku dhaca raashinka aan cunno. Waxaa kaloo keeni kara sunta ay soo saarto bakteeriyada sida Staphylococcus aureus. Sumoobidda cuntada waxaa kaloo loo yaqaan cudurka cuntada ka dhasha. Maxay yihiin calaamadaha lagu garto sumoobidda cuntada? Astaamaha ama calaamadaha lagu garto sumoobidda cuntada waxay noqon karaan mid fudud ama mid aad u daran. Waxaa laga yaabaa in aad ku xanuunsan tahay sumoobidda cuntada laakiin aadan aqoon waxa ay raashinku sababay. Bakteeriyada kala duwan iyo fayruusyada ayaa keena calaamado kala duwan. Haddii aad qabto sumoobidda cuntada, waxaad u badan tahay in aad qabto calaamadaha gastroenteritis sida calool, tummi, xanuun ama mindhicir, jururuq, lalabo, matag, shuban, qandho, madax xanuun. Calaamaduhu ama astaamaha sumoobidda cuntada waxay qaadan karaan dhowr saacadood ilaa dhowr maalmood si ay ku bilowdeen, taas oo ku xiran tahay sababta keentay sumoobidda cuntadaada. Maxaa keena sumoobidda cuntada? Sumoobidda cuntada waxaa keena cunista ama cabista cuntooyinka wasakhaysan ama cabitaanka. Wasakhaynta ama fasaqaada cuntada waxaa keeni kara cuntada oo si fiican loo karin, cuntada oo aan lagu kaydinin ama lagu xafidan darajada ama xaraarada ka hoosayso 5 digrii sentigrade. Qof xanuunsan oo cuntada diyaariyo ama nadaafadda oo liidato. Wasakhaynta isku tallaabta cross contamination faafiya jeermiska u dhexeeya cuntooyinka. Cuntada meesha lagu diyaariyo, maacuunta iyo qalabka. Waa maxay cunnooyinka khatarta sare leh? Cuntooyinka khatarta badan leh waxaa ka mid ah caanaha ama waxyaabaha laga sameeyo sida farmaajada, macmacaanka sida kastarka, kareemada iyo wixii la mid ah, hilibka nooc kasta, kalluunka, digaaga ama doorada, cunto badeedka, seafoods, cuntooyinka hilibka ku dhex jiro sida lasaanyada, suugada bariiska ama baastada karsan, ansalaatada. Goorma ayaan dhakhtar u tagaa? Xaaladaha ugu badan ee sumoobidda cuntada uma baahna daryeel caafimaad. La xiriir takhtarkaaga haddii aad isku aragto mid ka mid ah kuwan soo socda. Calaamado ama xaaladda aad u daran: matag iyo lalabo in ka badan hal maalin. Calaamadaha wax ka badan 3 maalmood. Dhiig ama dheecaan ah oo matag ku jira, dhiig ama dheecaan ku jiro saxaradaada. Waa in aad aragtaa dhakhtarkaaga haddii aad ku jirto kooxda halista sare. Maxay yihiin kooxaha khatarta ugu badan ee sumoobidda cuntada? Dadka khatarta ugu weyn ugu jira in ay cunto sumoowaan waa kuwa haweenka uurka leh, waayeelka, carruurta yaryar, dadka habka difaaca jirka oo daciif ah oo ay sabab u tahay xanuun ama daawooyin. Waa inoo barnaamijka kale oo ah sida loogu hortagi karaa sumoobidda cuntada ama food poisoning. Mahadsanidin. Sidaas iyo nabadgelyo.